warbaahinta sharafta leh aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan maanta doonayay inaan ka hadlo nin shalay toole berbere ka soo hadlayay ninkaasi waxaa la yidhaahdaa muxuu ahaa tallaabo waxa uu sheeganayay inuu mujaahid yahay waxa uu ninkaasi ku faanayay dawladda Soomaaliya inuu ku biirayo waxa kale uu ku faanayay gobolka waqooyiga Soomaaliya in beesha reesha Isxaaquni gooyin karto oo aanay cid kale gooyin karin aad baan horta ugu mahadnaqayaa waxa hoos loo leeyahay in kor loo yiraahdo sidaas oo kale ayuu fiican tahay aad iyo aad baad inaad u mahadsantahay haddii aad waqooyi ka gooysay Soomaaliya وعدالة الرأى دوني سيدنا تكون حكونتها هدنا ogow rag baa jira iyaguna intooda kaasii goosan kara rag baa jira intooda kaasii goosan kara wali waa naanu weysaysanni sidaad u faanaysid waqooyi u geysay wallaahi awdal waa nugu goyn karnaa wali waa naanu soo dhaqaaqin inta horta ugu laabto ku hayso waxa isaguna jira yar aanu maleynay isna dagaaladii ka sheekeynay oo caana kaani ahaa oo reer Gibile ahaa oo ma maleynay kaasi inuu jiro waqtiga dagaalada haddaan isla waqtigii dagaaladu jiray sidoo hadlay muu hadleen waxay tamay beela dhabiska caay Somaliland nabadeedu waxay ku xidhan tahay madaxweynaha maanta jooga colaadeeduna waxay ku xidhan tahay madaxweynaha maanta jooga awdal kuma xidhna gadabuursi kuma xidhna sool sanaa kuma xidhna midna kuma xidhna madaxweynaha ku xidhan tahay haddii uu cadaalad sameeyo oo isagu tanaasulka madaxweynaheenu wuxuu yaqaanaa nin jabay haddii uu sameeyo tanaasul oo madaxweynuhu ka tanaasulayo xuquuqda dadka iyo degta ku sito nabadda Soomaaliland way fiicnaan waynu ognahay xubin commission ay ku kala bixi lahayn xisbiyadii waa xubno commission ay ku kala bixi lahayn xisbiyadii waa madaxweynaha dhan ee reer awdal leeyihiin ee ay la rabaan ee ay ka doonayaan ee ay maanta doonayaan ay waxa ay soo wadaan ay xuquuqiya wax kala hadlayaan reer awdal waxaan leeyahay madaxweynaha xuquuqa kala hadashaani waa madaxweynaha xisbiyadii laba xubnood oo commission ay isku dhaqaaqi lahayn murankoogii cirka tagi gobolka awdal guud ahaan nabad baa ka jirta balaayo aanay xukuumaddu wadinina ma jirto dib aanay xukuumaddu wadinina ma jirto waxaanu ugu baaqaynaa oo aanu leenahay war ciidamada aad ku soo daabulaysaan ka daaya nabad baanu haysanaa anagu nabad buuxda oo taamaanu haysanaa dadka reer awdal maanta maalin ka nabad badan yihiin anigu ima soo marin mana garanayo waxaanu leenahay ka daaya ciidanka tiknikada laga soo daabulayo gobolada shishe ee awdal lagu soo daabulayo ee lughaye la keenayo ee boorama lagu soo daabulayo ka daaya baanu leenahay annagu waxaanu haysanaa nabad taamaanu haysanaa dadka reer awdal maanta waxay u dhaqaaqeen dhankii horumarka aad iyo aad baan u hambaliyay waa mahadsantiin malle magacaygu waa Cabdirasaaq Cumar Micaad waxaan ka socdaa telefishinka codka bariga Afrika hadda waxa ka dhawaajiseen gobolka Awdal ay nabadgeliyo tahay madaxdii shalay toole madaxweyne ku-xigeenkii wasiiradiina oo la socotay wasiirka ganacsiga iyo wasiirka biyaha waxay ka hadlayeen jabhadaha ka bilaabmay gobolka barigii jabhadaha lagu sheegaya galbeedkiina jabhadiisu daawibakar cilmi warbaa jirta la leeyahay xaaladda gobolka iyo jabhadaha ka bilaabmay ka xisbiyaansiyeed u aragtiin maanta maalin ay ka fiican yihiin dadka reer awdal waligay maan arag horumar bay ku socdaan maanta tallaabo fiican oo horumara dhanka horumarkay maanta u soo aad iyo aad baan jabhadaha horumara anu waxaan aaminsanahay nabadda awdal ka jirta maanta meel kale kama jirto Somaliland guud ahaan gobolka ugu nabad badan weeyaan haddaan xaalad la abuuray